الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu ka taaban doonaa salaada aynu taaganahay ee qiyaamul layl ama salaatul layl ama tahajjud, fadligeeda iyo fawaa'ideeda iyo al-asbaab al-mu'ina calayha. fadliga cibaadadan markaynu isu sheegayno wayna dhiirinaysaa, waa wixina dhiiri gelinaya camalkaad ku dhex jirto. marka lagu sheego fadligiisa, jacayl baad u qaadaysaa iyo jibbo ma ka daalaysa. fadaa'ilka cibaadadan qur-aankuna uu ka warramay, nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa waa ku sheegay. ilaahay baa wuxuu ka warramay dadkii jannada galay, jannada allahayna geeyey. markaa wuxuu sheegayaa sababta ay ku mutaysteen ay ku galeen jannada. ina almuttaqiina fii jannaatin wa cuyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum. ilaahay wuxuu siiyeyna way qaadanayaan, jannadiina way galeen. qaybta dambe ilaahay wuxuu uhi kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuuna wabilasxaari hum yastakfiruun. kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun. habeenkiiba aada u soo jeedi jireen, salaad bay u taagnaan jireen. waqtiga saxarka la suxuranayana ilaahay oo dambi dhaaf bay ilaahay weydiisan jireen. waa labada la inaga rabo tanay. waxa laga warbixinayaa waayihii adduunka iyo waxaan nicmadan maxaa lagu helay. dadkan baraare barwaaqaysta jannada maxay ku heleen? salaadan ay ku heleen. allah inaga aqbalo. cilmiga iyo aqliga wanaagsan cibaadadana laga helaa qaaliga ah. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. داد علم لنا إلهي وشيء، داد عقل لنا وشيء، لكن عبادة كهالرئيس. وداد هذين كقرآن كآخري وعبادة وتاجن فضلقية فائدة ذهلا وحوي علم وناكسن يا عقل وناكسن قفك عبادة على جذنا يا لا عقل ما هاك كلام بلا عبادة عاصقة. كعقل وناكسية وكعلم وناكسية وكفهم وناكسية. آيات كويب بدأي هنا حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن كسر قادر حديث أبي الدرداء الصحيح. النبي يقول إنه شيء صلى الله عليه وسلم الشام فائدة أو عبادة هذين كلام توه الرئيس. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. cibaadada habeenkii la isu taagay salaada ku dadaala. dadkii idinka horeeyay wanaagsanaa saalixiinta ahaa waa dhaqankooda. saalix aan qiyaamul layl la iman jirin quraanku wuxuu inoo sheegayaa iyo xadiidkuba inaanu jirin. saa daraadeed baa salaadu ilaahay ugu jecelay waa salaada nabi daawud. 4 saacadood 6 saacadood baa habeenkii seexanaya, 4 buu tukanaya, haddana labada dambe seexanaya. 12 saacadood saasay ugu barnaamijisay. marka nabi walba salaadiisii bay ku jirtay salaadani salaatul layl. faa'iidada labaad waa maxay? waa qurbatun ila rabbik. ilaahay bay ku dhaweynaysaa. bal ka waran waxa ilaahay ku dhaweynaya. waxa ilaahay weynaa ku dhaweynaya waa waxay tahay inaanu ku dhaafinba. wa manhatun 'ala al-ithm. wa faa'iidada saddexaad dembigay ka hor joogsataa cibaadadani. inna salaata tanha 'ani al-fahshaa'i wal-munkar. oo waa talaal dembiyada iyo macsiyada ayaa ilaahay kaaga talaalaya. wa makfaratu lis-sayyi'aat. kii ka dhacayna waa lagaaga dhaafaya. siyaada jirta oranaysa waa manhatun 'ani al-ithmi garanay dembigi lagaaga dhaafeena garanay. ومدردة للداء عن الجسد على معنى الحديث إن ثبتت هذه الزيادة. ما لا قاركود عبارة ضعيفين، ما لا قاركود تحسينيان. دنبينا وحلا إلى هذا عذر كلا إلى هاي شركو كجنا ذي فيها.
haddaba haddii aad dembigii iyo tawstii iyo xanuunkii ilaahay uu kaaga reebay ilaahayna cibaadadan ku dhaweysay maxaa ka wanaagsan dadka habeenkii cibaadadan aad u badsan jiray cudurradu way ka yaraan jireen cudurradan imika faraha badan ee lala nooliyo dhibka badan dadkii inta badan cibaadada u taagnaan jiray waxaas uu ka dhalaali jiray macaanka iyo dhiigkarka iyo cholesterolka iyo stressiga iyo waxa nafta isugu keenay dadkan cibaadaysanayn ma way lahayn saacada badan buu tukanaya haddana nafaqa darro iyo wax ku dhici jiray ma jirine waxa aan dad nuuraya qalbigooda iyo wajigoodaba ولهذه الصلاة بواعث صلاة waxay leedahay waxyaabo kugu dhiiri gelinaya ama ka caawin kara inaad cibaadadan habeenkii gudato waa asbaab maadiya waa asbaab macnawiya labada waa leedahay asbaabta muuqatee ka caawin karta cibaadadan inaad gudato waxa kamid ah an tuqallil al-mubahat waxyaabaha mubaaxa xaraan inaga dah mubaaxa inaad iska yarayso mubaaxa waa maxay waa hurdada shaqada iyo dherega haddii aad cunada badbadsato oo liqliqdo tidaa mid rabadaan la ilaa gaajo la idinku waajibay baa ku soo martay bal ka dhereg wixii la soo dhigay dhaqaaqi karimays taraawiixda waad suuxaysa ila dhiigii waxa loo dirayaa caloosha si uu ridqo maskaxdiigu in badan ka imanaya dabeetana inbihaar baa kugu dhacay oo kala daadanaysa marka cunada la yareeyaa sidoo nabigu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam adaabta kamid hurdada la yareynaya sidoo nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam shaqada la yareynaya haddaad 12 saacadood maalintii shaqaysay habeenkii ma istaagi karaysa maya duruuf adag oo kugu timaado oo bani aadam aad u shaqaysay mooyaane isku day inaad shaqada maalintii soo yarayso waxyaabaha ku sahli kara waxa kamid ah inaad qayluulada ogaato nabiguna waa ku dhaqmi jiray calayhi salaatu wasalaam maalintii inaad yar nasato saacad nus saac soo seexato habeenkii baad kari karaysa inaad kacdo asbaabta waxa kamid noqon kara ku dhiiri gelinaysa an taarifa fadla hadhihi al-ibada ibadada fadligeeda iyo faa'iidadeeda inaad taqaan xadiiska oo aayaadka akhri inta faralka in ka badan ayaa dhiiri gelinaysa quraan oo xadiis cibaadadan iyada iyo qowlkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ficilkiis marka fadliga shayga markaad garanayso kama daasho waxyaabaha ku dhiiri gelinaya waxa kamid ah tafsiirka quraanka inaad taqaan oo quraanka iyo qiyaamkii baa isle ilaa qiyaamkan aynu taagan quraan bayna ku akhriinaa Soomaa macnaha quraanka qofka garanaya ka aan garanayn ma isku mid baa ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم markaad garanaysa aayaadka suuratul an'am mawjada ka hadlayaan iyo fawaa'idkooda sababtay ku soo degeen dadka ay ka waramayaan naska ka horeeyay naska ka dambeeyay calaaqadu leeyahay tii qofka si fiican u fahmayay ka codka imaamku ku raaxaysanaya fi farqi baa u dhaxeeya quraanku waxa ilaahay tilmaamay qofka macnihiisa garanaya ta'thir buu ku sameeyaa aayadaha naxariistu macnay ku sameeyaan aayadaha cadaabka marka soo marta naxariis bay ku macnay ku sameeyaan الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله شركا ساتشر العون يقبل نعيونا آياتها عذاب هو نحريس تنو دبع يا وكلا بدنا حكينا يتا معني بقف كرنا مركز تفسير كقرآن كا سقاف صوماليا والحمد لله إنه دوبني هاي دقيست كتاب كنا كأكت بواعث كوحة كم إذا بواعث باطنية حياة كل رجالنا يا وحق قلبك وكوكي هاي بين علماء الدراسية باب كان خبراء ذكوها سلامة الصدر دي لابتاد وهي عافمات قبط ومسلم كعيل إيه عربي أنا ذو قبينة دت كيس ولا عفدان عبادة وكعضة وانا تكون راح يستطاع لكن مركب عيل إيه عرقبتها يدضون السيسان قاروا اسكو فوقنتين اسكو ررنتين ومشكلة ده دتك حاسد كوب بدنيها حرقفة السياسة إيو وحلاقة يا كم راح يسن كرتين عبادة سيدين كلاك وقود العاد ترى الله مركعات قشبة مركعات القلبة بيدبك هركينا يعني كرقبي شيطان كها
sidaad kaa faraha isugu fiiqfiiqaysaan baa salaadiiba dhammaanaysa salaada dhexdeeda salaamatu sadri waa dadkii aqoonyahankii cibaadaysan jiray waxa ay ka duubeen weeye baabka ah ama ka qoreen waxa ka mid ah bawaacifka baatinka ah الخوف الغالب مع قصر الأمل إن عبسداد بدنت أديكو يديديلادي دheeraydna soo gaabinaya ilaahay waad ka cabsanaysa yididiiladaaduna way gaabanta waa hebel booti safka laga qaado hebel kala ka sii horeeyay hebel kala ka sii horeeyay armal silsilada la qaadayo dadka laga dhax qaadayo safka aramadna habeen dambe kuyuga ku jirta waa cabsi joogta ah iyo yididiila gaaban dabeetana waxa la oranaysaa de kol hadii kuyugiiba aad ku jirta adigu wax ku damaanad qaaday in lagu dib dhigayaana aanay jirin bal degdeg uga gaarsi amalada marka kama caajisaysid cibaadada kama caajisaysid asbaabta waxa kamid ah qofkan cibaadaysanaya حب الله وقوة الإيمان إنه إلهي جعلها سبحانه وتعالى عدة تعيش شقادة كما داش داد مراح تعيش شقادة كداري داد سلانتي عيالك تعيش داد العقد تعيشها عدة تعيش هاي شقادة كما داش شقادة واتكو استراحي هبي بات قط هذا من الدولار كي دنانيت تعيش لحلا لحواد وضيس وانا أصفريس وانا أسوتشيدس عشان وادو سيجس marka haddaad ilaahay aad u jeceshahay horjoogiisa kama daaraysa marka laba aynu jamcinayna jacaylka ilaahay iyo cabsidiisa waa arin uu khaaliq gaar u leeyahay makhluuq la lahayn makhluuqa ka aad ka cabsato ma jeclaatida waad ka carartaa laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala adigoo jecel baad ka cabsanaysa waad ka haybadaysanaysa marka arrimahaasina waa kuwa baatinka ah maxaa keeni kara qof in cagiisu bararaan oo uu dhidido oo uu taagnaado halka oo aakhira ka arko عين اليقين وحكيني كان عبسيده إلهي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يتشعيلك إلهي ودرينسيها إنه إلهي الله الله يهرت أغيه والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إلهي والله فقيس عن رفت حقها وطفل قبل الله إلهي بكحشونا إنه كسي جيست إنه كفكر إنه حولمه أرمها السنوى أرمها وأسباب معينة على هذا القيام كعاونيس آدابتاسنا waa kamid marka waxaynu u baahanahay waqtiga yar kooban Allahu a'lam inaynu dhamaysanayeen kale fursadani waa qaali maanta hadii mikrofoonka lagu dhaweyn lahaa dadkeeni geeriyooday sanadkii hore inana tukaday oo la oran lahaa maxaa dadkii ka dambeeyay u sheegaysa wuxuu oran lahaa al-amal al-ibadati artaasa qabriga noorta taasa sahay rasmi jirteed rag iga gaarsiiyay dumarkii waxaad ku tiraahdaa war waqtiga hayska luminina oo shaxa kullu minina oo dunada kullu minina oo sheekaha kullu minina oo ciyaar galabti la ciyaaro ha kullu minina quraanku waa inoo sheeg nimanka gaaladii markay cawdaan ilaahay wuxuu leeyahay awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru bihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir sawtan imridin si maxay islaan waqtibaad kaf ayaa lagu siyaadad ka faa'iideysay maxaad aniga ilaahay buu ilaahay qala rabbi irji'un لعلي أعمل صالحا فيما تركت مركي نفته كسي بحي سوح الله إله وعلي العمل كي أنكو قبض فلين كفا إيدين ويجانس كي إله فرصد لبعض السي ألا ينقوم الردة تاية عواشرة وحين لا نهاي وقت قالين وكترنا كفا إيدين سنه وهذا ما أقوله وأستغفر الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت لحادثات الدهر حسبي ترى